السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل تونا شم ضوية شدة قيمها يقدرين تي شرف طبعا نقبض الكسر لبض الجنال كان يوتيوب كأن كلنا يهنا كورك وعشان توصل الكسر بدون ورك يقدم بي حالة ضلك إثيوبيا يسوق كل دجال كمر كلا كجر حقيقة كمية إثيوبيا deegaanada ay ciidamada ay ku dagaameen ciidanka dhaqaaqyada Tigreega iyo waxaana ay Tigreego ay maxaabiis aan u qabteen ciidamada ka tirsan Ethiopia maxaabiista laga qabtay ciidanka Ethiopia si rasmi ah u soo bandhigeen ciidanka Tigreega waxaana la sheegay in militariga Ethiopia oo madaafiic ay ku garaaceen qaybo kamid ah magaalooyinka Welfin ee gobolka Amhara ciidamada Eritrea ayaa weheliyaan taliska bariga Ethiopia ayaa waxay dhaqaaqyeen in ay weerar ku qaadaan Tigreega markale ay iyaga oo si maraya dhanka waqooyi ee galbeed haatan labada dhinac ayaa waxa la raaqay ciidan ay ka wadaan waqooyiga galbeed ee magaalooyinka Shareer ee Tokomia ee ka tirsan dalka Ethiopia ciidamada Eritrea iyo sidoo kale ciidanka Ethiopia ayaa dagaal xooggan ku dhaxmariyay muddooyinkii dambe deegaanada Ethiopia hoggii ugu dambeeyay wararka naga soo gaaray qaybo kamid ah Ethiopia si rasmi ah u tibaaxay dagaalka mar kale oo ka qarxay qaybo kamid ah Ethiopia u dhaxeeya ciidanka Tigreega iyo sidoo kale ciidanka federaalka Ethiopia wararka rasmiga iyo xoogii ugu dambeeyay keenay ciidamada Tigreega ayaa si rasmi ah xilligan dhaqaaqyo ciidanka wada qaybo kamid ah Ethiopia walow ay jiraan magaalada Maqale ee caasimada Tigreega ay madaafiic ku qaadaan ku garaaceen ciidanka Ethiopia xoogii ugu dambeeyay wararka naga soo gaaray Ethiopia ay sheegeen dagaalku oo waji cusub xilligan yeelan karo walow ay jiraan labada dhinac dhaqaaqyo ciidan ka wadaan qaybo kamid ah Ethiopia ciidamada federaalka Ethiopia ayaa xilligan iyagu dhaqaaqyo ciidankii ugu xumaa xilligan ka wada qaybo kamid ah Ethiopia walow laga cabsi qabay dagaalo kale halkaas mar kale uu ka qarxo walow ay jiraan ciidanka Tigreega halkaas lagu arkay dhaqaaqyo ciidan halkaas ay ka wadaan wasaaraha dalka Madaxweyne Abiy Ahmed wasaaraha Ethiopia ayaa sanad haatan ka hadlin dhaqaaqyada ciidan ay ciidanka Ethiopia ka wadaan qaybo kamid ah Ethiopia waxaana ciidamada Tigreega xilligan ay soo shareecdeen gaadiidkooda iyo sidoo kale iyadoo si rasmi ah loo sheegay qaybo kamid ah Ethiopia gaar ahaan dhinaca Tigreega aan wax huba laga ogoleen isla markaana magaalooyin fara badan oo muhiim ah hore ciidanka dowladda Ethiopia gaar ahaan ciidanka federaalka ay gabi ahaan kala wareegeen ciidanka Tigreega magaalada Maqale oo hore gacan ku haynteeda ay lahaayeen ciidanka Ethiopia gaar ahaan federaalka ayaa xilliga waxaad moodaa in dagaal xulus halkaas mar kale uu ka qarxi karo walow laga cabsi qabo in dagaal halkaas ka qarxo maadaama ay jiraan labada dhinacba ay ciidamada dhaqaaqyo ciidan halkaas ay ka wadaan wararka lagu qaaday qaybo kamid ah Tigreega ayaa mar kale iyaga oo sii marayaan bayna dhanka waqooyi ee galbeed haatan labada ciidan ayaa waxa ay dhaqaaqyo ciidankii awood ugu weynaa ay ka wadaan magaalooyinka Shareer iyo Tokomia oo ka tirsan Tigreega waxaana laga cabsi qabaa in kale dagaal ka dhaco qaybo kamid ah Ethiopia wararka hordhaca naga soo gaaray qaybo kamid ah Ethiopia si rasmi ah u tibaaxaya in ciidamada Tigreega xilligan ay cabsi weyn ka qabaan in marka halkaas dagaal xoog ku dhaxmaro ciidanka wadankaasi Ethiopia gaar ahaan ciidanka